magacaygu waa maxamed salmaan ismaaciil oo degan magaalada Burco ku magac dheer Gaaxsane waxaan halkan ku duubayaa maase dibindaabiye la yiraahdo oo ka hadlaysa walaalkii Cabdimaalig Muuse Coldoon. maasada waxay ku bilaabmaysaa danyartii agoontii dhibani la duudsiyay dameerkii u baahnaa taristiya dadaalkaba daa'im baa wax bixiyay isagaa u duur galay dibadaha u soo maray tiiftii abaaraha ninkii daalay raacdada u danseegay maatada miyaa dab inu qoosheen miyaa jeel u dayseen miyaan waar dareen iyo jir dubaaxiyaa jirin walaadiinu dheer ah waxadana wixii daran waxa dagan wixii dilan waxa daban wixii jira waxa daawo noqon karaa waxa boogta sii dila kala saara dawlooy dalku waa ammaanay ha ku diganin maandhow maxaad huursateen doog maxaad carmisheenoo maxaa wiil haldoorana ku dhansiisay qoorqabad xaqii daaqad loo furay hogda loola soo kaasaa kaba ku sii dhacay saaxiib Coldoon oo dulmanaha la ciilow maahmaaha duurxula dubaaqaaga deeqsii dadka kii ildheer baa misna ugu ayaan daran waxa taa daliilu ah wuxuu daalacdaayoo indhihiisu dheehdaan dul ahaanba aadmiga wax ka daahan musira Soomaalidu hore waxay odhan jirtay dadka kii ugu ildheer baa ugu ayaan daran waayo waxaan lala arkin buu isagoo arkaa dunidana dhammaanteed dibindaabiye raagtaa dow looga dhigayo doc kalena wanaaggaa dayr looga oodo waa laba dhandeeqee darajada ilaahay yaa ka quusan daacadda samirkuna dastuuriyo ha ahaada dabarkaa inta doodda unugtee suugaanta deeqdaa u dun haysa maansada inta dooxda faallada dadweynaha u soo hela warka dacal ilaa dacal intaad daawo siisiyo intaad duunyo raagtay daaruhu ka qaybiyiin ugu deeqay midigtaa ku difaacayoo yidhi soo daaya waa gobe waa damal hadhweynoo darxumada afuufee shuruudli'i ku soo daah anna waxaan ku sii daray ma duugowda garashada dadnimadu mid weeyaan diirkuna ma go'i karo dadku waa islaamuun dalna waa intuu dego midnimadu dan weeyaan haddii daacad loo yahay ninka taa ka didayow afka naga dabooltee kaalidaasad naga saar maasadaasi halkaasay ku dhammaatay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkiina waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan la ilaahay inuu uga soo furo wixii lagu haystana si saamax iyo si kale oo lagu ilaahay inuu gargaaro baynu u rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu